yarkan wuxuu caan iyo taajirba noqday isaga oo aanan hadlin, afkiisana hal eray aanan ka soo bixin, Qabani Lami, balse loo yaqaano Qaabi. waana qofka ugu falowga badan TikTok-ga. malaayiin qof ayaana ku xiran bartiisa gaarka ah si uu ugu madadaaliyo xirfadiisa gaarka ah. sababta ka dambeysa inuusan hadlin Qaabi Lami iyo qiso nololeedkiisa gaarka ah ayaan kula wadaagayaa. kani waa 22 sano jir si fudud caan ku noqday, $10,000 doolarna ka sameeya muuqaalada uu soo gudbiyo. waa Muslim Afrikaan ah, 2000 ayuuna ku dhashay dalka Senegal. Qaabi Lami wuxuuna ka dhashay qoys muslim ah, isagoo 1 sano jira ayaana qoyskiisa waxay u guureen dalka Talyaaniga, wuxuuna ku soo barbaaray gudaha dalka Talyaaniga ilaa uu ka gaaray da'da 14 sano jir. waxbarasho ayuu ku jiray iskuulada dalka Talyaaniga ayuuna wax ka baran jiray. sidoo kale wuxuu bartay Quraanka Kariimka, qowlka Eebe, maadaama uu muslim yahay qoyskiisana muslimiin yihiin. wuxuuna hadda yahay kan ugu caansan barta TikTok-ga. kadib wuxuu bilaabay inuu u shaqeeyo shirkad weyn oo CNC machine lagu magacaabo. kadib waxbarashadiisii, Qaabi Lami waxa uu bilaabay inuu shaqeeyo maareeyana nolosha qoyskiisa, wuxuuna shaqo ka helay mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee ku yaala dalka Talyaaniga. laakiin xanuunka coronavirus markii uu dunida ka dilaacay ayaa shaqada laga ceeriyay Qaabi. shaqada markii laga ceeriyayna wuu niyad jabay, wuu murugooday, wuxuuna noqday qof guri joog ah oo aanan wax shaqo ah gacanta ku haynin. balse bedel ka fiican shaqadii ayaa u yimid. waxyar kadib 2 sano gudahooda ayuuna isbedel weyn sameeyey Qaabi Lami. maadaama waqtigiisa ugu badan guriga uu ku qaadan jiray, wuxuu bilaabay muuqaalo sameyn iyo in barta TikTok uu ku soo gudbiyo muuqaalo. waxayna muuqaaladii ugu horeeyay uu soo geliyay barta TikTok ay ahaayeen isagoo qoobka ciyaar sameynaya. laakiin qoobka ciyaarkiisa qofna ma daneen, qofna ma xiiseen, qofna ma daawanin. muuqaalkiisii ugu horeeyay, muuqaalkaasna hal qof oo kaliya ayaa daawaday, halkaasi qofna waa isaga sida uu sheegay. waxyar kadib, maadaama la daawan waayey, xiise ay yeelan waayeen muuqaaladiisa, wuxuu la yimid fikrad cusub oo ah in uusan hadlin, kaliyana ficil sameeyo isagoo oo aanan hadlin. fikraddaas oo ah fikradda guulaysatay kana dhigtay Qaabi Lami mid caan ah. 2 sano ka hor qof shaqo laga soo celiyay buu ahaa, balse isla 2 sano gudahood ayuu caan ku noqday Qaabi. muuqaaladiisana waxay gaareen meelo fogfog. haddana bartiisa waxaa ku xiran 151 milyan oo qof. wuxuuna ka hormaray gabadhan fanaanadda ah oo iyadu ahayd markii ugu horeysay qofka kaliya ee ka horeeya Qaabi. si fudud ayuuna ku dhaafay dalka Talyaaniga iyo dunida oo dhan ayuuna caan ka noqday Qaabi. muuqaaladiisana waa kuwa si fiican loo daawado, malaayiin qofna ay ku xiran yihiin bartiisa gaarka ah ee TikTok-ga. Qaabi Lami luqadda Talyaaniga ayuu si fiican u yaqaanaa, waana muslim ku dheggan diintiisa. intaasi kadib, 22 sano jirkan markii uu noqday caan, waxaa u suurta gashay inuu la kulmo dad caan ah sida ciyaaryahano, dad saameyn leh, sidoo kalena ka qayb galo xaflado waaweyn. shirkado waaweyn ayuu xayeysiis u sameeyaa Qaabi. haddana waa qofka ugu falowga badan TikTok-ga. muuqaal kasta uu soo geliyo barta TikTok-gana wuxuu ka sameeyaa lacago tiro badan. nolosha qoyskiisana isaga ayaa maareeya. lacagahana waxay kaga yimaadaan meelo kala duwan sida TikTok-ga iyo xayeysiiska uu u sameeyo shirkadaha waaweyn. Qaabi Lami, muslim muhaajir ah, si sahlanna ku noqday qof saameyn leh, weliba caan ah ayuu noqday. haddana waa qofka ugu saameynta badan aaladda TikTok-ga, qofka ugu falowga badan. mana jiro qof aanan aqoonin Qaabi. ficilkiisa ayayna ku barteen dadka badankood, waana qofka kaliya ee isaga oo aanan hadlin caan noqday, sidoo kalena taajir noqday, tabcayna lacaga aad u fara badan. bishiina wuxuu sameeyaa lacaga aanan suurtagal ahayn, wuxuuna ka helaa lacag ka badan tii uu ka heli jiray shirkaddii uu shaqayn jiray. markii la ceeriyeyna fursad weyn ayay u noqotay in uu ka tago shaqadii, kadibna badal khayr qaba ayaa Alle u sahlay. sheekadii Qaabi Lami intaan ayaan kusoo koobayaa. tan iyo muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.